bal ka waran dal nidaamkiisa xukun diin lagu qaybsado si walba aad xilka ugu qalantana laga doonayo inaad aaminsan tahay diinta kursigaasi loo qoonday. waa maxay jahwareerka xukun ee Lubnaan ka jira, sidoo uu abuurmay xeerarka ugu yaabka badan waa kuwee ee ilaa maanta dalkan laga dabaqo. Lubnaan waa dal yar oo ku yaala xeebta badda Mediterranean-ka, balse waa mid ka mid ah dalalka ugu taariikhda adag caalamka. waa dal leh nidaam xukun oo aad u cajiib ah kuna salaysan diin. haddaba si aan u fahamno sida ay u shaqeyso dawladda dalkan, waa inaan arrimo badan dul istaagnaa isla markaana eegnaa taariikhda guunka ee dalkan. kumanaan sano ka hor, Lubnaan waxay ahayd xarunta ilbaxnimadii qadiimka ee Phoenician-ka. dadkii ilbaxnimadaasi lahaa waxay ahaayeen badmaaxayaal iyo ganacsato caan ah. saameynta ay kaga tageen dhulkaana waa mid weli ka muuqata oo Lubnaan waa dal u furan adduunka, dadkiisuna ay yihiin ganacsato caalami ah. awoodo kala duwan ayaa soo xukumay Lubnaan, sida imbraadoriyadii Farisiga ee Al-Akhmaniya, boqortooyadii hore ee Griiga, imbraadoriyadii Roomaanka ee hore ama Roomaankii bariga ama Byzantine-ta. diinta Islaamka waxay dhulkan gaartay qarnigii 7aad. dawladihii Cabbaasiyiinta iyo Umayyiyiintana waa ay hoos tagtay Lubnaan. Lubnaan waxaa loogu yeeri jiray buuraha magangelyada. kooxaha laga tirada badan yahay ee bariga dhexe sida Kirishtaanka, Maronite-ka, dadka Duruusta iyo Shiicada ayaana tigsan jiray. muddo kadibna bulsho walba waxay bilowday inay isku xukunto xeerarkeeda u gaarka ah, waxayna Lubnaan noqotay meel kulmisa dad kala diimo duwan. boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxay Lubnaan la wareegtay sanadkii 1516 kadib markii ay mamaaligtii Masar kaga guuleysatay dagaalkii taariikhiga ahaa ee Marjudaabiq. kadib Cusmaaniyiintu waxay Lubnaan xukumayeen muddo ilaa 400 oo sano ah. muddadaas ayaana loo tixgeliyaa inuu soo hana qaaday nidaamka xukun ee Lubnaan ee ilaa maanta jira. Cusmaaniyiintu si toos ah uma xukumi jirin gudaha buuraha Lubnaan, oo waxay talada u dhiibeen amiiro maxalli ah. tanina waxay abuurtay dareen ah in Lubnaan ay tahay deegaan ka go'an dawladaha kale ee Carabta. Duruusta waa koox qarnigii 11aad ka go'day Shiicada Ismaaciiliyiinta ee dalka Masar. inta badan culimada Sunniga iyo Shiicada waxay Duruusta u arkaan koox ka baxday Islaamka. haddaba sanadkii 1860kii dagaal dhiig badan uu ku daatay ayaa dhex maray Duruusta iyo Kirishtaanka. kadibna Cusmaaniyiintu waxay dhiseen gobol ismaamul ah oo loo yaqaanay Mutasaarifa. waxaa la dhisay golo ka kooban ilaa 12 xubnood oo u qaybsan hab diimeed sida Kirishtaanka, Maroniyiinta, Duruusta, Sunniga iyo Shiicada. waana halkan meesha uu ka soo hana qaaday nidaamka diimeed ee Lubnaan. markii Cusmaaniyiinta looga adkaaday dagaalkii koowaad ee adduunka, ururkii ka horeeyay UN-ka ee la dhihi jiray League of Nations wuxuu Faransiisku siiyey mandate uu ku maamulo Lubnaan iyo Suuriya. 1 September 1920kiina Generaal Faransiis oo Henry loo yaqaanay ayaa ku dhawaaqay dhismaha Lubnaanta weyn. Faransiisku wuxuu buuraha Lubnaan ku daray magaalooyinka xeebta ee Beirut iyo Tripoli. talaabadana waxay dalka ka dhigtay mid ballaaran oo dhaqaale ahaan isku filan, laakiin waxay bedeshay dheelitirkii dadka. tirada muslimiinta ayaana kor u kacday. gumeystigii Faransiiska wuxuu awoodda si rasmi ah ugu hibeeyay Kirishtaanka, asigoo qoray dastuur cusub 1926. Faransiisku wuxuu rabay inuu Lubnaan ka dhigo sida guri ay leeyihiin Kirishtaanka Kaatooliga ee bariga, maadaama uu daneynayay inuu Lubnaan ka dhigto saldhig siyaasadeed iyo mid dhaqan oo uu gobolka ku leeyahay. Faransiisku wuxuu dejiyay nidaamka ah in madaxweynaha dalka uu noqdo Kirishtaan, waliba madaxweyne awoodiisu xad dhaaf tahay. wuxuuna madaxweynuhu ahaa mid magacaaba ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada. sidoo kale wuxuu ahaa taliyaha ugu sareeya ee ciidanka. xitaa wuxuu awood u lahaa inuu kala diro baarlamaanka. Faransiisku wuxuu soo kordhiyay nidaam waxbarasho oo luqadda Faransiiska ah, waxayna taasi sababtay in dadka aqoon-yahanka ay si weyn ugu xirmaan dhanka galbeedka. sidoo kale Faransiisku wuxuu maalgeliyay dugsiyada, kaniisadaha iyo jaamacadaha afka Faransiiska wax ku dhiga, taasoo keentay in Kirishtaanku noqdaan dadka ugu dhaqaalaha roon dhanka waxbarashada maadiga ahna ku horeeya, ayagoona gacanta ku dhigay ganacsiga iyo bangiyada dalka. xilligaasi muslimiinta Sunniga waxaa loo arkayay dad laga tiro badan yahay oo awood yar, waxaana la siiyay xilal hooseeya, taasoo keentay inuu abuurmo dareen ah in Lubnaan ay tahay dawlad Kirishtaan ah oo ku dhex taala caalamka Islaamka. sanadkii 1943 dadka Lubnaan waxay u qaybsanayeen laba dhinac oo isdiidan, taasoo Faransiisku u isticmaali jiray cudurdaar uu dalka ku sii joogo. Kirishtaanka Maroniyiinta waxay ka cabsanayeen inay ku dhex lumaan dunida Carabta iyo Islaamka, waxayna rabeen inuu Faransiiska sii joogo si uu u ilaaliyo. Sunniga iyo Shiicadana waxay rabeen in Faransiisku ka baxo dalka, Lubnaan ay ku biirto Suuriya ama dal weyn oo Carbeed. hogaamiyaashii xilligaas sida Bishaar al-Khoury oo Kirishtaan ah iyo Riyaad as-Sulhi oo Sunni ah
waxay garowsadeen inta ay isdiidan yihiin inuu Faransiisku weligii ka bixin dalka, waxayna go'aansadeen inay danta qaranka hormariyaan. si madax banaani loo helo waxay gaareen heshiis afka ah oo aan qornayn kuna dhisnaa tanaasul. Kirishtaanka waxay ogolaadeen inay ka tanaasulaan ilaalinta Faransiiska oo ay Lubnaan noqoto dal madax banaan. Muslimiintuna waxay ogolaadeen inay ka tanaasulaan ku biirista Suuriya isla markaana Lubnaan noqoto dal xuduud cayiman leh. Markii heshiiskaas la gaaray, labada dhinac waxay noqdeen gacan qura. 8 November 1943 baarlamaanka Lubnaan ayaa meesha ka saaray dhammaan qodobadii dastuurka ee Faransiiska awoodda siinayay. haddaba arrinkaasi Faransiiska waa uu ka carooday, wuxuuna xabsiga dhigay labada hogaamiye ee gaaray heshiiska afka. laakiin ugu dambeyn Faransiisku wuxuu ogaaday inuu lumiyay xukunkii dalka kadib banaanbaxyo waaweyn oo dhacay iyo cadaadis dibadda ah oo la kulmay. Faransiiska waa uu sii daayay hogaamiyaashii uu xiray waxayna Lubnaan noqotay dal madax bannaan. heshiiskii qaranka ee 1943 wuxuu noqday xeer aan qornayn oo dalkan u yeeshay, kaasoo dhiirigeliyay in madaxweynuhu noqdo Kirishtaan, ra'iisul wasaaraha la siiyo Sunniga, gudoomiyaha baarlamaankana ay yeeshaan Shiicada. laakiin awoodda tirada badan ee madaxweynaha Kirishtaanka lahaa muslimiintu kuma qancin. bilowgii 700-yadiina Lubnaan waxay ahayd sida bambo u diyaarsan inay qarxdo, waxaana ugu dambeyn qarxay 1975 dagaalkii sokeeye ee socday ilaa 1990. dagaalkan arrimo badan oo isbiirsaday ayaa sababay, sida in Shiicadu tiradoodu korortay dareemeenna in laga qadiyay xukunkii dalka. sidoo kale Falastiiniyiin Urdun ka soo wareegay ayaa Lubnaan saldhig ka dhigtay. Falastiiniyiintaasna Kirishtaanku waxay u arkayeen kuwa khatar ku ah Lubnaan, muslimiinta tiradoodana kordhinaysa. taa beddelkeedana muslimiinta waxay Falastiiniyiinta ka aaminsanaayeen xulufo kordhin karta awooddooda siyaasadeed. haddaba dagaalkan socday muddada 15 sano ah wuxuu si rasmi ah u qarxay 13 Abriil 1975. maalintaas Maleeshiya Kirishtaan ah ayaa weerar gaadmaha ku qaaday bas siday dad Falastiiniyiin ah oo marayay xaafad ka tirsan magaalada Beirut. weerarkaasi waxaa ku dhintay qiyaastii 27 qof oo Falastiiniyiin ah. isla habeenkaasna Beirut waxay isu beddeshay furun dagaal, waxayna u qaybsantay laba qaybood: Beirut bari oo Kirishtaanku ahaa iyo Beirut galbeed oo ay ku sugnaayeen Sunniga, Shiicada, xisbiyada bidixda iyo Falastiiniyiinta. waxaana u dhaxeeyay qad cagaaran oo qofkii ka gudba la tooganayay. dagaalku wuxuu isu beddelay mid gobolka saameyn ku yeeshay. ciidanka Suuriya ayaana soo galay Lubnaan iyagoo ku dhawaaqay inay nabadda ilaalinayaan, balse Suuriya waxay ahayd sida garsoore hubeysan oo raba inuu dalka oo dhan maamulo. muddo 29 sano ah ayayna Lubnaan ku sugnaayeen ciidanka Suuriya. sidoo kale Israa'iil ayaa 2 jeer ku duushay Lubnaan si ay ula dagaalamaan Falastiiniyiinta, waxayna taageereen maleeshiyaadka Kirishtaanka. sidoo kale Iiraan ayaa Lubnaan indheheeda ku soo jeedisay iyadoo qayb lixaad leh ka qaadatay aasaasidda ururka Xisbullah. ciidamadii shisheeye ee Lubnaan tagay waxaa ka mid ahaa ciidanka Mareykanka oo ku waayay dhulkan askar badan. bishii Oktoobar 23 1983 gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa lagu dhuftay dhisme ay deganaayeen ciidanka Mareyniska ee Mareykanka oo ku yaalay garoonka diyaaradaha ee Beirut. qaraxaasna waxaa ku dhintay 241 askari oo Mareykan ah. ka hor qaraxaasna bishii Abriil 1983 waxaa la qarxiyay safaaradda Mareykanka ee Beirut, halkaas oo ay ku dhinteen 17 qof oo Ameerikaan ah. intii uu dagaalka Lubnaan socday, waxaa la sheegay in guud ahaan ay ku dhinteen dad gaaraya 120,000 ilaa 150,000 oo qof. madax iyo hogaamiyaal badan ayaana qaabab kala duwan loo dilay, sida madaxweynihii Lubnaan ee Bashir Gemayel oo la dilay 9 maalin kadib markii la doortay, waxaana lagu qarxiyay xaruntii xisbigiisa ee Beirut. sidoo kale ra'iisul wasaarihii dalka Rashid Karimi ayaa qarax loogu xiray diyaarad helikabtar ah oo uu saarnaa. dagaalkii sokeeye ee Lubnaan wuxuu si rasmi ah u soo dhamaaday bishii Oktoobar 1990 kadib markii la gaaray heshiis taariikhi ah. xildhibaanadii Lubnaan ee ka badbaaday dagaalka ayaa isugu tagay magaalada Daa'if ee dalka Sacuudiga 1989, halkaas ayayna ku saxiixeen heshiis nabadeed. heshiiskii Daa'if meesha kama uusan saarin nidaamkii diineed ee xilalka lagu qaybsanayay, balse dib ayuu u qaabeeyay. kuraasta baarlamaanka oo markii hore Kirishtaanka u badnaayeen ayaa laga dhigay 50-50. min 64 kursi ayaana loo qaybsaday. waxaa si weyn loo dhimay awooddii madaxweynaha, waxaana awoodaha laga qaaday loo wareejiyay dhanka golaha wasiirada. heshiiskii Daa'if waxaa Lubnaan si rasmi ah loogu aqoonsaday inay tahay dal leh aqoonsi carbeed, iyadoona la masaxay doodii ahayd in dalku yahay Phoenician ama reer galbeed. sidoo kale waxaa lagu heshiiyey in dhammaan maleeshiyaadka hubeysan hubka laga wareejiyo, marka laga reebo Xisbullah oo loo ogolaaday
inay hubka sii haysato si ay Israa'iil ula dagaalanto. Xisbullah waxaa la aasaasay sanadkii 1982 xilligii Israa'iil ay ku duushay Lubnaan si ay u burburiyaan ururkii Falastiiniyiinta ee PLO. Iiraan ayaa kaalin weyn ka qaadatay dhismaha Xisbullah. 1500 oo tababarayaal ah oo ka tirsanaa ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa loo diray Lubnaan si ay gacan uga geystaan mideynta iyo tababaridda kooxaha Shiicada. Xisbullah ma ahan kaliya ciidan si weyn u hubeysan, balse waa urur saameyn ku leh siyaasadda. Xisbullah waxay qayb ka tahay baarlamaanka Lubnaan tan iyo 1992. sidoo kale waxay xubno ku leedahay golaha wasiirada tan iyo 2005. waxay si weyn qalqal ugu furi kartaa go'aamada dawladda ee ka hor imaanaya danaha urur, gaar ahaan arrimaha hubka iyo amniga. Xisbullah waxaa loo arkaa kooxda hubeysan ee ugu awoodda badan caalamka ee aan dawlad ahayn. inkastoo la dilay hogaamiyaheedii ruuxiga ah ee Xasan Nasrallah, haddana weli waa mid xoogan oo ku hubeysan kumanaan gantaal iyo drones, waxayna sheegataa inay haysato ciidan gaaraya ilaa 100,000 oo dagaalyahan. awoodda siyaasadeed ee Shiicada Lubnaan waa mid u qaybsan laba garab oo waaweyn, waana Xisbullah iyo Amal. ururka Amal oo uu hogaamiyo Nabih Berri waa garabka diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed ee Shiicada. sida uu dhigayo nidaamka Lubnaan, gudoomiyaha baarlamaanka waa inuu ahaadaa Shiico. laga soo bilaabo 1992 ilaa maantana xilkaasi waxaa haya Nabih Berri. dhawaan waxaa soo ifbaxay khilaaf weyn oo u dhaxeeya Amal iyo Xisbullah. gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada ururka Amal ayaana taageeray go'aankii dawladda Lubnaan ee sharci darrada kaga dhigtay dhaqdhaqaaqa militari ee Xisbullah, waxayna Amal u muuqataa inay ka fogaatay garabka hubeysan ee Shiicada. nidaamka xukunka Lubnaan waa mid ka mid ah kuwa ugu murugsan adduunka, waxaana lagu magacaabaa conventionalism ama awood qaybsi diimeed. waa nidaam loogu talagalay in lagu ilaaliyo nabadda u dhaxaysa 18 kooxood oo diimeed, balse waa mid inta badan keena dib u dhac siyaasadeed. sida uu dhigayo heshiiskii qaranka ee 1943 iyo wax ka beddelkii lagu sameeyay 1989, xilalka ugu sareeya dalka looguma tartamo si furan oo waxaa loo qaybiyay diimo gaar ah. baarlamaanka Lubnaan wuxuu ka kooban yahay 128 kursi. 64 kursi waxaa iska leh Kirishtaanka oo loo qaybiyo Maronite, Orthodox iyo Catholic, halka 64 kursi kalena ay qaybsadaan Sunniga, Shiicada, Druusta iyo Calawiyiinta. dalka Lubnaan lagama sameyn tirkoob dadweyne oo rasmi ah tan iyo 1932. sababtuna waa in dawladdu ka baqayso in la ogaado tirada muslimiinta ee aadka uga badan Kirishtaanka, taasoo keeni karta in nidaamka awood qaybsiga uu dimo, dagaal sokeeyana uu dib u qarxo. tirada dadweynaha Lubnaan waa ku dhawaad 6 milyan. sida la qiyaasana Shiicada iyo Sunniga marka la isku daro waxay dadka dalkan ka yihiin 65% ilaa 70%. Sunniga sanadihii dambe khilaaf iyo jahwareer siyaasadeed ayaa haystay. marka ay sida weyn u midoobeenna waxay ahayd markii qarax aad u weyn lagu dilay Rafiq al-Hariri oo ahaa bilyaneer 2 jeer ra'iisul wasaare noqday. wuxuu ahaa qarax weyn oo ka dhacay Beirut oo mideeyay Sunniga, kaasoona markii dambe dhaliyay kacdoonkii sida ee ciidanka Suuriya looga saaray Lubnaan. wiilkiisa Saad ayaa dhaxlay hoggaanka, laakiin sanadihii dambe wuxuu go'aansaday inuu ka fariisto siyaasadda. Lubnaan ma lahan xeer madani ah oo si midaysan u quseeya guurka, furiinka iyo dhaxalka. qof walbana wuxuu tiigsadaa maxkamad raacsan diintiisa. tusaale ahaan, haddii aad tahay Sunni, Shiico ama Kirishtaan, waa inaad aadaa maxkamad diimeed oo raacsan diintaada ama madhabkaaga. haddii la soo saaro xeer madani ah, madaxda diimaha ayaa weynaya awoodooda maamul iyo maaliyadeed. sidaas daraaddeedna dadka doonaya inay isku guursadaan meel aan ahayn maxkamad diimeed waxay aadaan sida Qubrus ama Turkiga, kadib ayayna dalka ku soo laabtaan isna diiwaan geliyaan. wasiiradu inta badan kama amar qaataan ra'iisul wasaaraha, balse wasiir walba wuxuu ka shidaal qaataa hogaamiyaha kooxda diimeed ee soo magacawday, oo wasaarad walba waxay u dhaqantaa sida dawlad madax bannaan. haddii koox diimeed oo weyn ay ka baxdo xukuumaddaasi waxay weysaa sharciyadii matalaadda, waxaana qasab ah inay dunto, xitaa haddii ay baarlamaanka taageero ka haysato. inkastoo dadka reer Lubnaan ay dhowr jeer kacdoon sameeyeen sida 2019, haddana waxaa dalkan nidaamkan xukun ku sii hayaa waa cabsi jirta awgeed, oo koox walba waxay nidaamkan u aragtaa gaashaan ka difaacaya kooxaha kale ee diimeed.